nod hore waxood hore asxaabtooda hore wixii dhan hore inay ka taqalusaan ay samaystaan hadda iyo face cusub weliba ay noqdaan yani dad waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan markale iyo video cusub janalka aad nagala socotaan oo museen janal anigu oo museen soo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan duhur wanaagsan casir wanaagsan kullu shay wanaagsan asxaabta la soo dhawaada asxaabta la joogta kala soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin waa jecelahay إن شاء الله waxaan ugu qisada koor fadla jarag subscribe like share kama saxbadaada kana masada subscribe ku sanno la garay no share garay dhamaantiin dhammaantiin waa idin wada jecelahay إن شاء الله noo bilaabo qisadan waxay ahayd qisadii noo socotay weliba ay baartuwankeeda soo fiirsateen soo markay baartuwankeeda waxay noo mareysay booliska markay ay heleen meydka loo maleynaa inay ahayd geebi laakiin aysan markaas ku dhawaaqin inay geebi tahay waxaa dhacday in booliska baaritaan markay sameeyeen ay xaqiijiyeen gabadhii meydkeeda inuu yahay geebi dhanka kalena waxaa socday wiilka reerkiisu waxay wadeen yani dadaal ah in wiilkooda ay u qabtaan qareen u dooda tan kalena wiilka waxaa jira qorsho kale uu wato oo ahaa in asigoo lacag uu haystay because youtube-ka lacag ka shaqeeyeen iyo lacag kale oo si private ayaga u shaqaysteen shaqooyin qaas qaban jireen lacagahaasi waxaas uu haystay isla markiina wiilku wuxuu bilaabay inuu guri ka baxsado shantii maalin ay guriga markuu kusoo laabtay shan maalin kadib waa gabadha meydkeeda marka la helaayo shantaas maalin marka waxyaabaha qaldame oo booliska ay ku qaldameen sida la sheegayo waxaa kamid ah qof yacni la tuhmay inuu qof dilo weliba qofkii la laayahay in aysan inaysan duldhigin dad ilaaliyo oo kor kala socdo xaaladihiisa because markii kow laguma haynin wax dembi ah laakiin markii dambe oo la xaqiijiyay in asiga uu gacan ku dhiig leeyahay oo la raadina la waayay marka hore booliska aysan ilaalo duldhigin waa tan koowaad qaladka koowaad ee booliska la saaray tan labaad qaladka labaad ee booliska la saaray waxay tahay in markii lasoo wacay intii gabadha la dilay kor qof uu soo wacay weliba uu sheegay in meesha dhibaato ka jirto gaari noocaas ah taarigadiisa noocaas tahay laba qof ay ku dhex jiraan qof dumar iyo qof rag ah weliba ay isku dhex dirirayaan qofka dumaran aad loo garaacayo boolisku wada hebel waayo buu yiri laakiin booliska waxa maysa keer gareenin oo ma garanayo ayaga sida boolisku dad waxay yiraahdeen in connectionka ama waxa lagu xumeeyo qadka laakiin codkaas wuxuu galay boolisku uu galay laakiin ma aysan recording gareenin ma aysan sii keer gareenin marka dambe waxa sheegay qofka mid booliska haddii xitaa codkaas ay haan lahaayeen qofkii soo wacay oo adresskaas yani numberka laga soo wacay iyo qofka maxay tood meesha wadada u joogay waxaas numberkaas heli lahayn xitaa wuxuu noqon lahaa yani marqaati lagu geeyo ninkaas maxkamad laakiin dhibaatada jirto waxay tahay qofkii lama hayo numberkiisa because booliska ma aysan recording gareyn codka waxaa kaloo aan lahaynin ninkii falkan geystay asigana wuu baxsaday marka waxyaabaha oo dacwadan daciifin karo weliba falkan dilka yani dhumin karo oo maran habaabin karo waxaa kamid ah inaan lahaynin marqaatigii markii gabadha la dilaya joogay inaan lahaynin dilaagii gabadha dilay laakiin familigeeda waxay ku doodayaan waxyaabo badan oo qalad ay booliska sameyn ay jirto taasoo ah in markii gabadhii ayadoo ooynaysa ay gaari ku dhex arkeen weliba saa videoga hore ku fiirsatay gabadhii markii oo askariga joojiyay videoga ee oynaysay weliba aad oynaysay ninka booliska uusan sii keer gareenin uusan usii dhabagelin xaaladeeda waa tan koowaad ee booliska ku qaldamay sida la sheegayo iyo tan labaad oo ah inaysan recording gareenin qofka cadeenka iyo cadeynaya in gabadhan uu ninkan dilayo weliba uu ku dhufanaya waxyaabo waaweyn labadaas qaladba waxaa la sheegay inay ka dhaceen booliskii weliba hooyadu waxay leedahay booliskii ma wuxuu adeegaa dadka mase private dad qaas buu adeegaa soo marka taas waa taas laakiin baaritaanada kale booliska waxa lagu ogaaday in gabadha markii kow ay dhahayseen aniga ninkii baan gacan qaaday aysan u gacan qaadin laakiin asiga waa wax u gacan qaaday uuna ku rakaatay oo yiri haddii aad sheegtid weliba aad dhahdid ninka i gacan qaaday xabsiyaan galayaa qolo kale gaangis oo garanayaan soo dirayaa saas ayaan adiga iyo reerkaaga iyo kulligiin ku dilayaa marka isku day inaadan hadlin oo dhahdid ninka anigaa dilay saasaan ooyna unu wax iga xanaaqsan yahay wax kale ma sheegi kartid saasuu yiri allaha yacni sida oo ay ku daandacoonayso hooyadiis iyo asiga basuu la sheergaray hooyadiis wuxuu ku yiri saasaan dhahay hooyadiis marka dambe boolisku markay qabteen ay sheegtay dhibaatada kale jirto waxay tahay gabadha wuxuu rabay inuu maxay tood
يعني geeyo ku tuura meel webi ah weliba sembir webida ogtiin xaas iyo bahalo ilaah ugu talagala ku nool laakiin wuu u noqon weysay meel wuxuu ku tuura because wuxuu dareemay qof uu arkay waayo markii qofkii booliska soo wacay wuxuu dareemay in shilkan gabadhan ku dilay inuu qof arkay saacaas kadib hadii baabuurka sii saarnaatana oo la dareemi karo boolis waxay sameeyay baaritaano gaariga dhexdiisa ku sameeyeen laakiin gaariga wax cadeyn way ka waan because markuu dilay wuxuu ku dhex dilay bac meel u fidsan ku dilay markuu dilayna macal ayada iyo bacdii wax lagu isla tuuray marka ma jirto wax cadeyn oo gaariga laga dhaxelo inuu dil cadeynayo laakiin wax kale la helo waxay tahay gabadhii meydkeedii oo laga helay farahiisa iyo wuxuu ku dhuftay qaar waxyaabo ku dilay qaar kamid uu la helay intaas oo kaliya ayaa wax la helay tan kale jirto waxay tahay ninkii maadaama uu fakaday Mareykanka waxa ka jira sharci ah dad badan oo dambiilayaal ah waxa jira dafakadaan dad dhintay meedadka yani hospitaalada qaybaha meedka tago listiga dadka dhintay magacyadooda soo ogaado kadib qofkaas dhintay magacyadiisa la baxayaan waxay sameeysanayaan yani kaar cusub ay sameeysanayaan hadda iyo bilow qof yani dunida ku soo biiray iska dhigay soo marka waxa waaye qofkii dambiga galay ma waa raadinaysaa oo weynaysaa laakiin waxa uu ku socdaa oo magaalada ku jooga oo baasaboor ku sameeyay wax ka sameeyay wixii qof beri hore dhintay magaciisu magaalada ku jooga waliba uu ku qaadanaya baasaboor wax kasta ku qaadanaya marka boolis waxay leeyihiin waxa dhici karta in gobolada kale oo Mareykanka ninka uu tago uu ka qaato baasaboor iyo wax kasta uu ka qaato laakiin markaas uu wax kasta qaadan wax kasta bedela oo isbedela oo wax kasta bedelaya waxa ayagana bedelma oo meesha ka baxay waa waalidkiis because waalidkiis haduu la soo xiriiro oo soo kol galay booliska way arkayaan because waalidka nambarada soo wacay waxay ku hayaan baaritaan way arkayaan way dabgalaan saas lagu soo qabanaa marka dadka dambiilayaasha sembir waxay sameeyaan sida booliska Malaysia tirada qabtay ay sheegayaan inay namekiisa iska bedelaan inay iska bedelaan baasaboorka ay wax yani wax kasta lagu soo dabgali karo inay bedelaan teleefanadooda hore waxooda hore asxaabtooda hore wixii dhan hore inay ka taqalusaan ay sameystaan hadda iyo face cusub waliba ay noqdaan yani dad kaligood socda oo san saaxiib yeelan oo wax yeelan si saaxiib u yeesho marka la isdhex galo wax kasta la isla ogaado wax uu ka soo fakaran marka boolis waxay leeyihiin kaligiisu meel degay waliba wuxuu qaatay laakiin baaritaana labada asig lagu soo qabanayo muhiimadu waxay tahay in beedkii gabadha la helo waliba baaritaanada la sameeyo asiga dilay laakiin asiga aan la haynin gabadha hooyadu waxay leedahay shirqoolka gabadheeda lagu dilo shirqool la ogyahay hadii la waayo gabadheedii iyo ninkii dila hadii la waayo waa in hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii lagu bedelo because of 5 maalin asoo guriga jooga oo gabadheedii soo dilay ayaga yani boolisku dhiib waaye oo xitaa aniga soo kol galeen waa ayaga qariyeen ninkii maadaama ayaga ay qariyeen hadana qareen u sii qabatay ay tiri qareen ku dooda hadii lagu xiraa u baahan tahay maadaama ay tiri waxaan u baahanahay maadaama ninkii la waayay in la xiro hooyadiis waliba ay gashay xabsi u dhigmay ciqaabta gabadheeda uu marsi la asiga laga helayo hadii ay dhacdo hooyada yani in iyada ay qarisana waa in lagu xukumaa dildiraad beetir hooyada marashirada qabtay because of waxa jira waa hooyo waxa isleedahay yani gabadhaada markii maxay tad la maleegayay ama dhibaatada loo diyaarinayay naagta kale way ogaad waxyaalahaas iska dhaadhicsi sembir hooyo waa hooyo maxay doontaa ahaato meeshay doontaa kasoo jeedo laakiin xanuun waxa dareemka qofkii wax dhalay waliba awlaadiisa marka dhib la gaarsiiyo mid laga hadli karo maaha soo marka qisada waxaan jeclaa inaan part 2 idin soo gabagabay because of part 1 waxa idinku dhahay part 2 ba soo dhameynaa saas daraadeed marka insha Allah part 2 waa kana gabadhii way geeriyootay waa la xaqiijiyay ninkeedan waa baxsad wali lama hayo soo marka insha Allah kullu ilaahna badbaadiye hada dunida waxa ku batay yani dilalkii qof yani nin dilay xaaskiisii gabar dilaysa odageedii waxyaabo soo badan ku batay markii laga soo tagay yani dadyogaas kale dunida waxay ku jirtaa ingiriis Soomaaliya dhulka Soomaaliya degto dhan ay ku jirtaa dhibaatadaas markasta ilaahna badbaadiyo meel kasta iyo markasta ilaahna waa xafido dhamaantood waa jecelahay dadka channelka imaanaya iska fiirsana iska baxa please channelka subscribe iska reeba like-tiisa share-tiisa comment fiican insha Allah comment-tiin iyo like-tiina
subscribe-kiina u dhiirigelin oo tahay dhammaantiin maasantiin qofkii su-aal qabo insha allah ha igu soo diray instagramka iyo facebooka qofkii taliyo tusaale qaban insha allah qaybta community dhammaantiin maasantihiin